لا تقتلوا أسود بلادكم فتأكلكم كلاب أعدائكم. hadilina libaaxyadiina si aysan idin cunin iyayda cadowgiina waa orah uu horay u yiri alle ha u naxariistay madaxweynihii dalkiisa dhiiga u shubay balse ay dadkiisa ugu bedeleen dil waa maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee shacbiga dalka Masar soo xushaan ayuu ahaa maxamed mursi intaynaan u guda galin sheekadan laagsaar muuqaalkan waxay noo tahay dhiirigelin iyo inuu muuqaalkan gaaro dad badan oo sidoo kale u wanaagsan noloshiisa mabaadi diimeed ay ku salaysneed taa ayaa ka yeeshay inuu cadowsado dalal badan oo caalamka iyo siyaasiyiin dalkiisa ka soo jeeda waana tan sahashay in ugu dambeyn uu ku geeriyoodo xabsiga gudihiisa maxamed mursi 2006 ayuu xabsiyo ku qorqoriyay gudaha dalkiisa isaga oo xildhibaan ah maadaama uu si aad u dhaleeli jiray dawladii xukunka ciidanka ee xilliga jirtay hase ahaatee 2012 waxa uu afti dadweyne Masar mursi ku noqday madaxweynaha dalka Masar isaga oo xilliga ka tirsanaa garab diimeedka iqwaanul muslimiin balse aha shakhsi dalkiisa iyo dadkiisa jecel waxa uu ku suntanaa shakhsi tiisa ka hormariya mid dalkiisa aqal kuwii dhisa ayaa dumiya waa halhays Soomaalida dhexdeeda caanka ah balse mursi mid ayaa ku dhacday kol dambe kadib markii xilka afgambi looga tuuray isna loo dhaadhiciyay xabsi madow maalinta ay dad badan oo reer Masar ah waayeen geesigii loo baahnaa waxa uu hela noqday afarta darbi ee jeelka dalkiisa wax dambi ah kama uusan gelin bal iska badaaye in uu gurubsado hantida dadkiisa intii uu haystay awoodda dalka Masar cadowga dibadda kaga yimid Masar oo adeegsanaya dadka mursi uu horumarka la doonayay isla iyagii ayaa xiray kadibna dilay dhimashada mursi cidna wax iskama aysan weydiin hase ahaatee waxaa lagu soo koobay tacsiyeyn mursi waxa uu si aad ah u difaaci jiray qadiidaha islaamka isaga oo meel fiican ka istaagay mowqifka Qudus iyo Aqsa ee dhulweynaha reer Falastiin taas ay u malaynayaan saaxiibadii mursi inay soo dadajisay in la isugu daro afgambi xabsi kadibna qaarijin xasuusaha dul hoganayo waayeelka iyo qaangaarka reer Masar waa mid aynaan dunida sawaran kareynin iyada oo dawladda iminka uu leeliyo Al-Sisi lagu xanto mid u adeegta danaha reer galbeedka ama dadka qaar waxa ay u adeegsadaan oraah ah dawlad kale ku dul nool Masarta iminka jirta qadiidaha islaamka kuma wanaagsana xiriirka kala dhaxeeya Israa'iil ma xuma qadiidaha dhulka Aqsa iyo Qudus waayeelkadeed dunida islaamka kuma cusba inay muslimiinta ka soo baxaan shakhsiyaaddan u janjeera oo inta badan dhageysta casharada ay u soo meerinayaan dalalka sheegta awoodda sare laagsaar muuqaalkan waxay noo tahay dhiirigelin iyo inuu muuqaalkan gaaro dad badan oo sidoo kale u wanaagsan